Assalaamu calaykum. xaqiiqooyinka wadanka Estonia. Estonia waa wadan ka tirsan wadamada Yurub kuwooda dhaca waqooyiga Yurub waxaana xad la wadaagaa wadamada Latvia, Ruushia iyo Finland waxayna ku fadhisaa badadaan 45,228 kilomitir square waxayna ka dhul weyn tahay wadamada Denmark iyo Holland. tirada dadka ku nool Estonia ayaa ah 1.328 milyan. isla ahaan Estonia waxay ka kooban tahay 3 nooc. 70% waa Estonian, 25% waa Ruushiyaan, halka 5% ay yihiin dadka ka soo jeeda dalalka kale. 3 meelood hal meel waa kastaan, halka in ku dhow kala bar dadka Estonia ay yihiin diin la'aan. luqadda rasmiga ay ku hadlaan waa Estonian, sidoo kale waxay ku hadlaan English, Ruushiyaan, Finnish iyo af Jarmalka. Estonia waa mid ka mid ah wadamada ugu cagaaran Yurub. 50% oo dhulkeeda ah waa kaymo, waxayna leedahay in ka badan 2,000 oo jasiiradood. waana wadanka ugu badan ay ku nool yihiin hal-abuurayaasha midowga Yurub. Skype-ka waxaa lagu hindisay Estonia waxaana sameeyay developers Estonian ah, inkastoo shirkadu ay leeyihiin dad Swedish ah. sidoo kale Estonia waxaa lagu sameeyay hotmail. waxaa dunida fajac gelisay wadanka ay dadkiisu badkiisu dhulkaasi saas u yar yihiin, haddana horumarka xagga tiknoolajiyadda ka horumarsan wadamada ahaan iyo baaxad ahaan ka weyn, taasi oo ku muujinaysa in tiradu micnaysan sameeyeen ee loo baahan yahay tayo iyo hal-abuur tiradu inay weheliso. Estonia waxay la dagaalantay jahliga aqoon la'aaneed. dadka wax akhriya waxna qora waa 99.89, waana wadamada ugu horeeya dhanka waxbarashada guud ahaan Yurub. Estonia waxaa lagu tilmaamaa inay tahay wadan digital ah, waliba dhanka online-ka qadka tooska ah, waxaana sahlan in wax walba lagu sameeyo internetka, inaad ku bixiso lacagta bankiga, gaariga, ganacsi ku samaysato, inaad ku bixiso canshuurahaaga, codbixinta iyo wax kasta oo kale. inta badan shaqada dawladda waxaa lagu qabtaa hab online ah, taasi oo yareysay qarashaad badan oo uga bixi lahaa xafiisyada dawladda. Estonia ayaa noqotay wadankii ugu horeeyay sameeya codbixinta qadka tooska 2005. doorashadii u dambeysay ku dhawaad 17% dadka waxay ku codeeyeen habka online-ka. Estonia haweenka ayaa aad uga badan ragga, boqolkiiba dumar ah waxaa ku aadaya 84 nin. Estonia waxay noqotay xubin ka tirsan midowga Yurub sanadii 2003. dhaqaalaheeda ayaa si weyn u kobcaya, waxayna leedahay suuq casri ah, waana mid ka mid ah wadamada ku sareeya dakhliga guud ee dalka. haddii loo qaybiyo dadka, shakhsi walba waxaa ku soo aadaya $29,500. dhaqaalaheeda ayaa ku tiirsan ganacsiga. wax soo saarka guud ee dalka waa 30.9 bilyan. caasimada wadankaasi waa Tallinn, waana magaalada qadiimiya. dhismayaasha ku yaala wadanka waxay ka mid yihiin dhismayaasha taariikhiga u diiwaan gashan UNESCO. Estonia ayaa u dabaaldegta 2 xornimo. 1918 waxay xornimo ka qaadatay midowga Sovieti. sidoo kale waxay mar kale ku dhawaaqday sanadii 1991 inay xornimadeedii dib u heshay, kana heshay midowga Sovieti. waana xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO, waxayna xubin rasmi ah ka noqotay sanadii 2004. Estonia waxaa madaxweyne ka haweeney, waana haweeneydii koowaad ee madaxweyne ka noqota dalka tan iyo xornimadiisii, isla markaana ah qofkii ugu da'da yaraa ay qabta jagada madaxtinimo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii taa markii ku horeysay soo boqoto kanaalkan, nagu soo biir kana mid noqo asxaabta halkan isku widaarsata aqoonta. wabilaahi tawfiiq.